shaqaalaha ka howlgala isbitaalka guud ee xerada qaxootiga Dhagaxley ayaa ka cabanaya mushaar yari taasi oo sababtay in gabi ahaanba shaqaaluhu ay ku dhawaaqaan shaqo joojin. Isbitaalka xerada qaxootiga Dhagaxley oo gacanta ay ku hayso hay'adda ka shaqeysa arrimaha caafimaadka ee MSF Switzerland ayaa muddo 6 maalin u xayiran shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalihii ka howlgalayay isbitaalka oo gaaraya 426 xirfadlayaal caafimaad ah kuwa oo isugu jira dhaqaatiir, kalkaaliyaal iyo qaar kale oo ka howlgalayay qaybaha kala duwan ee isbitaalka. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha shaqo joojinta sameeyay oo ka hadlaya waxa ku kalifay in ay joojiyaan shaqada ay u hayeen bulshada iyo cabashadoodu waxa ay tahay. aywa Xasan waxaana ka mid ah shaqaalaha qaxootiga ee la shaqeeya MSF khaasatan waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka. waxyaalaha aan ka cabayn waxa ka mid ah mishaar xagga waxaan qaadan horta mishaar mo waa waxa la dhahaa maxaa la dhahayay sabuungad kuma filno waxay la mid tahay cirbad la geliyay bad ay la mid tahay waxa aan qaadano iyo waxa ay daboolayaan markaan isu fiirino waxay la mid tahay cirbad lagu dhahay badda geli adi biyo ku cab ama dad ku sii marka sidaa darteed waxaan ka cabanaynaa mishaarkoo zaa'id noogu yar. Cabdiqaadir MSF staff department maternity aniga waxaan ka hadlayaa xagga paymentiga xagga lacagta markaan dhahno markii la dhaho xagga maciishada zaid ay u kacsan tahay iyo lacagta annagana la beegareynaa waa total difference malaha. marka waxaan codsanayaa hay'adda MSF xagga haddaan fiiriyo xagga UN xagga ISRCK iyo Red Cross kulli haddaan fiiriyo annagoo inaan risk place ku jirno annagana ka lacag yar. marka waxaan leenahay horta boos weyn baan u hayno haddaan ka banaynay zaid inoogu baahan yihiin anigoo waan ognahay moog uma qabno. marka kulli hay'addu maan kabar sugaynaa. magacaygu waa Xasan Nuur Cabdiqaadir Sheekh waxaan rabaa qodobkan mishaaraadka oo horteeda gabadha ay ka hadashay inaan wax yar ku daro. annaga in muddaan hay'adan u shaqaynaynay qaxootigana xaalado kala duwan ayaa naga soo maray. lacagtan qaadanayno aad bay u yar tahay, shaqadan qabanayno zaid bay u badan tahay. wixii aan ku dabari lahaana wax isu dhow ma ahan. wixii aan qaadanaynana meeshiisi inay wax laga bedelo hay'adii in muddo ah halkii ay taagan tahay. dhinaca kale gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga Dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xirnaashaha isbitaalka ay caqabad weyn ku tahay dadka qaxootiga isagoona intaa ku daray in uu kala hadlay hay'adda MSF in ay ka jawaabto cabashada shaqaalaha joojiyay shaqada hase yeeshee ay hay'addu ka dalbatay in muddo gaaban la siiyo si ay xal ugu hesho caqabada shaqaalaha. arrintan mudaaraadka shaqaalaha MSF waxay ku dhawaaqeen taariikh 30 bishii hadda soo dhaafnay ayagoo ka cabanaya dhowr qodob oo MSF ay qorayn uga hadleen. mudaaraadka markay bilaabeen kadib warqadihii qoraalkii ay soo gaarsiiyeen waxaan la fadhiisanay MSF kuwan Nairobi jooga ayaan la hadalnay. waxaan u sheegnay in cabashada dhalinyarada qodobada qaar ka mid ah wax laga qaban karo wax laga qabto. MSF qodob ay ballan qaadeen oo waxay dhaheen wax waan ka qabanaynaa laakiin hadeertan waxba kama qaban karo sababtoo waxaan u baahnay in waqtina la siiyo. waxaad maanta banaanka jooga oo mudaaraad ku maqan waa 426 qof oo shaqaale ah. waad fahmi kartaa inta boosada way xiran yihiin qaybtii muhiimka ahaa oo naagaha uurkale meeshay tiri jireen ANC way xiran tahay. meelo fara badan oo muhiim baa xiran. waxaa jira maamooyin oo iyagana sokor qaba iyo waayeelo dhaktar qaba iyo kuwii palliative xaabadaha lagu booqanay dadkan way dhibaataysan yihiin. Mustaf Maxamed Xuseen Mustaf Murtiile raadiyaha TV-ga dalsan xeryaha qaxootiga Dadaab gobolka Waqooyi Bari Kenya.